xanuunka xasuusta xasuuqa Itoobiya ee Xamar. labadii sano ee Itoobiya joogtay Xamar magaalada Muqdisho ayaa martigelisay dagaalo isdaba joog ah iyo weeraro dhaliyay khasaare naf iyo maal ah. Dhimashada in ka badan 10,000 oo ruux laablaabka tiradaas oo dhaawac ah malaayiin hanti burburtay oo ay sii dheer tahay raadka maskaxeed iyo kan psychology ee u reebay xasuuqaas. ciidamada la ku soo qorfuray oo shisheeyaha oo baalkii sidaan loo galay oo dadkana jarjarayo ama la ka bixiyo diimka nagu garaacayo wax walba nagu garaacayo oo sidaan noo galay oo baabaa naga taagay oo baalkii maatadeena laynayo oo guriyana nagu soo galay oo baalkii anagoo jiifnay anagoo soo jeednay intaba nala ku garaacayo oo wax naga nacayo ayna jirin oo wax noo maqanayna jirin oo meelana aan aqoon oo dalkeena dadkeena nala ku haysto ama la ka dulqaado haday jiraan baalkii adduunka waxaan ka codsanaynaa in la ka dulqaado ciidanka Itoobiya oo na dul saar karbaashkii iyo hadaladii kulula ee dhexmar jiray kabtanada kooxaha iska soo horjeeday wallow dadkii kalamaanka ahaa hadda qaarkood ay isku soo biireen oo gacan soo siisa Itoobiya iyo maceedana waxaan ugu tagaynaa gurigooda dhibaataduna waxay ku gaareen gurigooda dadkii jiray baan kamid ah baqtigooda adduunka oo dhanna waxaa la yiraahdaa sidii Soomaaliya idin jiidaynaa haddeeray dad madow noo soo direen oon ku hub dhamayn maxaad u malaynaysaa waa maqlay qaar soo xamar laha Amerikaan baan waajibinay maxaa anaga dawladdan Soomaaliyeed oo hadeer yar iyo Itoobiya iyo iska yeelan kara dawladda meesha rabaan amariyeen hadda dagaalamada marka waxay ka helaan bay leeyihiin dagaalka ayaa dan loogu jirtaa haddaba hal ogaado dagaalka dan loogu jirtaa nimanku ama meel ilma oo shacabka dibadiisa hay soo keeneen aan dagaalanay ay dagaalka shacabka dhexdiisa ka daayo annagu Soomaali u dirimayno diin baan u diriraynaa marka wuxuu diimaayay danka leeyahay danihii kale ku garay nabadda wax ka qaato oo fidmada iska daayo ciidamada soo galay ee dawladda Itoobiya ay dalka ka baxaan ciidamada Itoobiya la bixinayaan jeer wadanka amniga yimaado Itoobiyaanka ay soo galaan dalka leeyahay madana arrintaas Itoobiyaanku bixinayaan baan ku celinaya dalkayga cadawga ku soo duulay oo ku jiro inaan hadda cadawgaas iyo kuwadeega aan la xajoono nooma saamaxayso marka waxaan rabnaa ciidamada Itoobiya ka baxaan kuwa kale la bixinayaan kuwa hor la keenaya ciidamadii shisheeye oo Mareykanka soo howlgeliyay asagoo ka argudanaya shacbiga Soomaaliyeed dhacdadii 1993 kun iyo meelaad Amerikaan oo magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ka buuxa muqalada adiga dad yar oo Soomaali oo shacbi ay leeyihiin kala ka adkaan karaan ma aaminsantahay waa mada dhibaatooyin aan la koobi karin oo dadweynaha rayidka ee Soomaaliyeed loo geystay siiba intiisa taagta daran sida carruurta haweenka duqeyda gabadhooda ku gadaalkooda ku gabanayaan haweenay carruur iska soo hormarinaya oo marka inta gaashaan ka soo dhigta ula soo galaya meeshii ay ku diirayeen dawladda yaa ka masuula marka dadka halka ku dhinta dagaal laguna jiro arintu dagaal kuna jidna difaac baa lagu jiraa hadeer iyaga bilaabo dagaalka iyaga wada ma dawladdu inay wado anaga waxaan goosanay cadawgaas inaan la dirno iska daayo fidmada iyo balaayada dagaalka iyo xabad wuxuu haliya anaga ka soo daalay oo idinka horreeyay oo wadan ku soo jifray oo eedmay iska daayo kala waayaa shirka ka soo qaybgalo fikradina dhiibto hadii wax khaldan kala shirka ka sheego Soomaali si loo heshiisiyo naga qaybgalo Itoobiya inaan ka adkaan jirnay mashaki baa idin kaga jira ya diyaar ma u tiir meeshii awooyaashiina tagayna tagtaan intaad xoog wax ku qabsatid inaan laga yeelin habeenimo axad ah oo taariikhdu ahayd 1 bisha Abriil 2007 idaacada BBC Land of Soomaaliga ayaa sidaan uga warbixisay xasuuqii ka dhacay magaalada Muqdisho maalintii Sabtida iyo labadii maalin ee ka horeeyay dhammaan baaqiyaadka awooda laga dhageysanayay waa markale iyo barnaamijkeena caawiya caalamka qodobadaan idinku hayana waxa kamid ah xamaro xaaladeedu aanu saartay daawaca dadka oo marka ay isbitaalada qaadi waayeen dhirta hoos yaala meydka oo marka xabaalihii la gaari waayay banaanada kale lagu aasayo qolka dadka naftooda la baxsanaya oo kala jahaystay jidadka waqooyi iyo koonfur uga kala baxay magaalada Muqdisho xaalada guud ee Muqdisho waxay iyo caalamka sidii warkaba ku maqlateen oo idinku sheegay dagaalada magaalada Muqdisho ayaa waxay galeen maalintii saddexaad iyada oo dadkuna ay naftooda ugala cararayaan
garanayaan hubka meesha ka dhacayo oo aad u culus laakiin arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada jabuuti inoo soo diray wariyahayaga xasan bariise oo hadda jabuuti isagu ku sugan xasan sida ay BBC u sheegeen dad goobjoogayaal ahi waxa uu dagaalka maanta oo bilowday waxyar kadib saqri dhexe ee xalay ahaa kii ugu darnaa ilaa iyo 16 sano ee lasoo dhaafay goortaasoo dadka reer muqdisho ay hurdada kaga soo salaleen gantaallada xooga badan ee loo yaqaano BM-ka oo ay magaalada la dhaxayeen ciidamada Ethiopia ciidamada waxaa ka horjeeda dhalinyaro qabiile u abaabulan oo u badan dadka reer muqdisho kuwaasoo maanta maalintii saddexaad dagaal kulul kaga soo horjeeday ciidamada Ethiopia oo doonayay in ay magaalada ka samaysaan goobo cusub ama fariisimo cusub oo militari goobjoogayaal ku sugan magaalada muqdisho waxay BBC u sheegeen inuu dagaalku ugu xeel badnaa deegaanada ku xeeran garonkii muqdisho stadium deegaanka xamar jadiid xaafadda xarawyaale xaafadda tawfiiq iyo suuq baxaad iyo gurta kuwaasoo dhammaantood ka agdhow garoonka muqdisho stadium ay ku sugnaayeen ciidamo Ethiopian ah oo la sheegay in ay halkaasi ku go'doonsanaayeen oo ciidamada Ethiopian ay doonayeen in ay soo furtaan siyaasi darteedna waxay deegaanadaasi oo dhammi marti u noqdeen madaafiic aanan loo meeldayin kuwaasoo ku hadsanayay guryaha dadka shacabku degan yihiin goobjoogayaashu waxay kaloo BBC u sheegeen in goobaha ay ciidamadu isaga hor yimaadeen ay ahaayeen 2 ama 3 oo keliya laakiin ay madaafiicdu gaartay meelo aad u badan ilaa iyo hadda lama oga tirada dadka ee ku geeriyootay dagaalka maanta hase yeeshee wararka laga helayo dhinaca goobaha caafimaad in ka badan 20 dhinteen in ka badan 80 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kuwaasoo la dhigay isbitaalada Madiina Kaysanay Al-Hikma Xayaat iyo goobo kale waxayna tirada guud ahaan 3 maalmood la soo dhaafay gaaraysaa 350 qof oo dhaawacyo ah iyo 150 dhimasho ah sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka sidoo kale waxaa iyana jira dhaawacyo ama dhimashooyin kale oo aanan lala awoodin in laga gaaro goobaha caafimaadka oo ku xamilan goobihii ay wax ku noqdeen halka kuwa geeriyoodayna la isaga aasayo goobo aanan qabuuro ahayn sidoo kale goobjooga ku sugan muqdisho ayaa BBC u sheegay in ay dagaankooda oo keliya ku aaseen 7 meyd oo askar Ethiopian ah oo wax meesha ka qaadan la waayay sidaas darteedna caafimaadka dagaalka dartiisa ay u aaseen dhibaatada dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka soo gaaray waxaa weheliya baraka xaad u weyn iyadoo qoys saxayay oo weliba baabuur watay dhinaca degmada afgooya ay BBC u sheegeen in ay wadada 70 kiiloomitir oo keliya ku jireen ilaa iyo 4 saacadood taasoo muujinaysa baaxadda dadka kaxaya oo wada oo dhan xiray iyadoo dadka kaxayana aad u badnaayeen ilaa iyo hadda ma jirto wax waanan ah amaba wada hadal u dhexeeya labada dhinac ee ay faya waa ciidamada Ethiopia oo dadka reer muqdisho lamana hayo waxba ah oo ka soo baxay dowladda ku meel gaarka oo sheegta in ciidamada Ethiopia ay iyadu kaalinayeen waxay dowladda Ethiopia sheegtay in ay magaalada muqdisho ka qabsadeen dhowr goobood isla markaana dileen ilaa 200 oo qof oo ku tilmaameen inay ahaayeen kooxaha taxdiinka ka wada muqdisho sidoo kale waxaan weli la ogeyn inta uu dagaalkan sii socon doono iyo waxa ay natiijadiisu noqon doonto midna hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa muuqda waxa weeye keliya dil dadka qaar ay xasuuq ku tilmaameen marka loo eego gantaallada BM-ka ee lagu garaacayo goobaha rayidku degan yihiin burbur weyn oo magaalada loo geysanayo iyo barakac weyn oo dadkii rayidka ahaa iyadoo uu welibana dagaalkii sii socdo xasan bariise BBC